عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مانتين بملك ستات شوفتان سولو هذا لنا هاي وارسم بيوتي اللي رسون إذا لنا هاي ماركرة سولو هذا سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبقى السلام على مريبا شوفتان سولو هذا مرلبات من ستحات أبقى نزل سولو هذا إن شاء الله وينو سلتوجناه برنامجك بيجك لايك شير كومنت انتبه دكو يا عيل الماذا ريال وقعلي يا ليا قبليل كفرتا او لايكتا يا شيرتا يعني واب انرجيغي غورتانيga لايكتا كو marka loo like lareeyo energy bay soo kordha good ma fahantay subscribe tona jawaab waxa kaliya tahay barnaamijkii meen iyagu ay ku heli karayaan sax waayo hadii aan wixii ku subscribe gareysnayn ma helisid ma fahanteen aad iyo aad baan idin salaameynaa waa mar kale iyo qisadeeni aynu isku wada ogeyn part 2 bilaabeynaa insha Allah bidnaahi kariim waxa weeyaan bilowgii jacaylkeena part 2 qisadu way sii kolaanaysaa sheekadu way sii macaananaysaa dhinacna yar badreemisa inay yani hawlo ku soo yar ma garanaysaa food leeyihiin iyo jacayl iyo waxaan kugu wadi kala fogaansho waxaan idin bilaabay idinkiyo maxay ahaydey ay mid walba midka kale ka leeyahay fiicnaan lahayda inaan wadanka aad wax ka soo baranaysaa ama jaamacadaada aan ugu raaci lahaa ama nasiibku halkaaba iga sii dhigi lahaaba good ayahay bacdeen way maxay ahaydey kala tageen mid walba diyaaradiisa u raacay mid walba wadankii uu scholarship ka helay ayuu toos u tagay bilowgii iyo waxaan kugu wadi nolosha marka ugu horeysa dee waa la isla soo hadlayo waa in yar oo message-yada iyo jacaylada iyo waan dee yani mar labaad ayaan jeclaan lahaa inaan ku arko يعني indhahaagii iyo waxaan kugu muuqaagii booranayaa dhig ayaan xiisay markaasayna tunooranaysaa sidoo kale waan jeclaan lahaa dhigow inaan ku arko raayahayga yani aad bay u basaaseen waxaan naga rabaa kaasna sheekadii jacaylku inaan kala qasaya بعدين waxay maxay ahaydey message yaryar iyo laba firiir baa la isku dirayaa markaas waxaan kugu subaxdii oo kale iyo diyaar garoobaysa gelinka dambe iyadu tagtaagelinka hore guriga joogtaa isna gelinka hore jaamacadda taga ay subaxdii markuu kacolo fiiroosaa bugto haya aan isku dareeyo ayuu isagu soo dirayo iyo hurdo waxaan kugu indhaha markay soo kala qaadaba waxay arkaysaa dee waxaan kugu fariin ka socota dhig markaas ay oranaysaa waxaan lahayda ama nasiibku hadii uu i joojin lahaa meesha aad joogto ayaan ka sii jeclaan laakiin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inaan adiga oo kale ana adduunkan kula kulmay inaan ku bartayba yani celebrate bila tahayba isna waa kaasoo sidii baa sheekadu u yar soconaysaayo inantii eeg hada marka la bilaabay jaamacadda semester 1 maanta ay tahay يسكو بدنا مركي شيكادو ديار سي سocto ma fahantay waa la yar kala mashquulaya waliba siiba inanti ayaa mashquulayso inanta familygeedii iyo hooyadeed baa la socda marka de shaqadeynuna de shaqada horta ragga dhinacna iyaga inaga badan oo deeniga mas'uuliyad iyo arrimo badan dhinacna inaga ayaa uga ragga dumarka ayaa yar maxay ahaydey hawlo badan de tan way yar mashquulshay marmar ay فرين في عن جرسيسة هذا ساعات ما هذا يرضى ما إنه يرد تنايسو إلا هي يعني أي ضدك كلا لقصته إن أنتم ما شاء الله إن أد قرح بدنه وقال له كالس كارك ويانو ما شاء الله بعدين لو بهنا تدخل لو بهنا بحيث ليه إلى قبضتن كذا كلام وايلي قبضتها جيل شيء مركز يسلي طلو من كلام يلك قبضة طلو معيد كلا يسبرتين طلو ذا صهاية طلو محاد عاي ورود ودناها أي فرتكو هيا
deetana waqti ka mid a ayaa maxay ahaydey waxa dhacay inay si kedisa iyada ay hawl yar ula kulanto bacdeenna ay maxay ahaydey wadankii iyo jaamacadiiba ka tagto si degdega ay wadankii uga baxayso fariin kaliyaatay u awooday inay u reebtay tiraahdo dheegow aad baan ku jecelahay noloshaydu iyo jacaylkayga iyo farxadaydu waa adiga se laakiin waan ka xumahay midnaxaysa waan ka xumahay inaan maxay ahaydey maadaama aanan halkaagina imanaynin maadaama aan waxaasoo dhan hooyadii caafimaadkeeda muhiima waan ka tegayaa jaamacaddii waxaanan ka tegayaa wadankii deganaa waana noqonaya xaggaan ka imiday inaad ii soo ducaysaan rajeynayaa masajkaas markuu u tegay dheeg muxuu dareemayaa talo anigii baaba waxaan ku jiraa gudweyn iyo lambarkii markiiba dee waxaan kugu ii wadankii ka tagtay telefoonkii iyadunbaa ka haysa muso waxaan kugu iri wax badan yacni dee sheekadii waxay noqotay haygu soo qaadin inankii murugo yacni dhugtis isagoo dhugtinayo kolba waxaan kugu iri tagaa jaamacadii tagaayo markaasuu dareenka jacaylkana waa dareenka ugu samaynta badan oo markaba la fahmo ee laysna dhiibayo gabadhaada adkayda saa isku kala waday iyo wiilkaagii haa ninka wax laga yaabaa dadkii galaasimiidka jacada lahaa ama dee asxaabta lahaa ee kaftiraya meel isku raaci jireen markiiba waa la fahmayaa deetana hawl dheer baa kaluntay sheekadii waxaan kugu iri aada iyo aad ayuu qasantay inantii waxay istiri maadaama aanad inankii markii horena aad nasiibku iskiin siiyey maadaama nasiibku horta waa markii hore waa kii iskiinku la siiyey ayay dhul tiri maadaamuu nasiibkaaga aad aragtay oo aad daawatay oo aad indhahaaga oo caafimaad qabiyo kuwiisa oo caafimaad qaba aad ka timiday ayaad maxay ahaydey aad kala tagteen isku noqon maysaan maadaama aad jaamacaddii iyo waxaan kugu iri hamigaad halkan u timidayna xaaladda caafimaad ee maamadaa ku timiday ka weyntahay maxay ahaydey macasalaame jacaylkiisa oo bal hadda mar kaliyaata yara cidleeyo in yar miyay karaysaa ma karayso waxaan kugu islaantii dee mahoy maxaa ka helay ma jirtee inantii yacni for example ahaan baan ula socdaa hooyadii laakiin qalbigayga iyo quluubtayduba miyaan kulaba joogaa ismigayga mooye miyaan kulaba joogaa jismigayga mooye miyaan kulaba joogaa marka sheekay hooyadeed bay yacni heestaa u qaadisaa inankii dheeg ayaa waxaan ku wiixiisale adoo nabada soo noqon nasiib waxaan la soo kula warwar haa heestii buu shidayaa ana waan ku sugayaa soo noqo inagu yarto maasha allah yacni kuleyl baan dareemay markay qisadii halkaa marayso weliba markii sheekada saa laygu waday ay xoog waxaanan kululay laakiin iminka maasha allah weeyaan sahray yacni anigu baba qiyaasi karaba qisooyinka saasoo kaleana hobigayga weyanaan ka sheekay moogtahay bacdeen aad iyo dareen ahaan qalbi ahaan iyo xolba waan isku bedelay waxaan rajeynayaa daawadayaashuna sidaan anaguba isku bedelayna isku bedelin baan ugu rajeynaya waayo waan ka naxnaxinaynaa wadnaha heestaad naga codsataan ku wadnaa soo maa haa waa heesta dheeg qaadayo caawa waa dhudhiye Sara dunidoo dhan sidaan ku yeeshaa
hesho أنا وانكسوغيا سنقاضو نبضا سنقاضو نبضا يعني adduunyada horta heestan ku yar explain inanka iyo inanta labadaba way ka turjumaysaa aad iyo aado iyadu way yar niyad jabtay jacaylka safarka u dareemaysaa haa way dhutinaysaa isaguna waxaan kugu booliyo iyo wuxuu dareemayaa yacni inuu dee keligii meeshiiba ay cidhiidhi buu dareemayaa mugdi buu soo galay deetana isaga ku dhashay xilay intaad ka maqan tahay magaalada iftiin male haa meelaan dhoweyn baad iga muuqanaysaa meelaan dhoweyn baad iga muuqanaysaa yaan madiihaanine marwadan jeclaayey kala marmi mayne maru nabad ku soo noqo dudidan jeclaayey kala marmi mayne maru nabad ku soo noqo waa kaa halkaasaan ku joojin doonaa waxaan ku koorey oran hub inaad dala murugaysan tihiin laakiin waa sheeko waa qiso dhacday oo aad iyo aad ii saamaysa aniga run ahaantii laakiin maxay ahayday insha allah khayr baan horjeedinaa idinkana idin rajeynayaanu maadaamaan ogahay qisadii ay sahrina og tahay horta maalinta hore si fiican maad ogeyni maanta laakiin markii dambe oo ka maanta haa ilaa maxaa suu karisday waa doonaysaa nimcoy jacaylka iyo waxaas laguma dhifto صح hadiiba aad tiraahdo imka aniga igan saaraa qisa ka samaysa waro jacayl soconayaa taado qisooyin badan anoo horta kuma gaariya adiga waan hayaa laakiin waan kugu soo daba jiraa laftaydu waxaan kugu wari ya waan dhaafsanay marka jacaylka ayaa waxaas oo isma walihiba maalin kasta ayaa barnaamijyo badan oo jacayl oo taxano adduun oo waxaan ku la iswaayo la isleeyo la marba jacaylku istisaba waxa weeyaan dib iyo dhaaf labadaba uu leeyahay laakiin waa waxyaabaha adduunka ugu macaan ee aad dhadhankiisa ee aanad tilmaami karin laakiin aad farxad ku dareemayso jacaylku waa naxariis waa tahay asxaabta maxaad leedahay aad baan idin salaamayaa meel kasta joogtaan waxaan rajeynayaa markalena caafimaad qabtaan qisadan aniga way iga murugaysiisay anigoo sheekada qisada haya haddana waan la dhacsanahay waxaan isleeyahay sidee baarti 3 iyo baarti 4 lagu gaadhayaa baarti 5 insha Allah inta baarti inoo noqoto aynu ku joojino qisooyin kale aan idin rajeynaynaa kasii macaan badan baanu u kurgalaynaa dadkalaan soo casuumayna qisooyin ku dhacay noloshaaba qisa nolosha adduunka ilaahay sahray noloshu iyadaaba qisa good marka waxaan kugu leeyahay xanuunaa jira xanuunadaasna hortii rabadaanteedii horaan xasuustaa inagu soo socotay iminka ilaahayna gaadhsiiyey inagu soo foodlay xilligan oo kale aan xasuustaa wadanka waa dam halkan xidha marka doorkan anu siduu ma baqayo hortii oo maasha allah yani dee waxaan horta marka horeba saasaan aaminsanaa laakiin iminkana inaani waxba inaga soo gaadhin badnin baan aaminsanahayo yani durayo kale saf inagu marayo ayidii xidhan jirtay saf mar ilaahu nooga dhig waxaa deetana waxaan ku saf mar ayuu nagu mari doonaa insha allah ilaahay baan ka baryaynaa taasina aad iyo aad baan idin salaameynaa waxaan idin leenahay qisadaasi waa taa waa baarti 2 maanta insha allah I hope inaan idinka sii dhameyn lahaa laakiin waqtigeena ugu yar awgeed inaguma sii dhameyn karno channelka like saara subscribe saara comment gareeya saad jeceshihiin idinkaa meesha le idinkaan wax idinku nahay soo yaaca soomaha bye bye